duumayo kida masdira lawo ku qaracaya raggan Yurub jooga ee durbaanka tumaya ee hadda xitaa aan muuqaalada arkay baraha bulshada ee TikTok-ga iyagoo ku haya waxaan doonaynaa inaan maalin heblaayo aniga hebel iyo hebel aan sameeyno barnaamij qabyaaladaysan oo lagu kala baxay waxay doonayaan oo isacbatumayaan oo ay rabaan wax kala ma waxay rabaan in gabdhaheena sharafta leh ay faan iyo qurux u maleeyaan inay baraha bulshada wadan islaam isku rifaan inay dharka iska jeexjeexaan oo isqaawiyaan ee kastuumooyin isku soo reebaan iyagoo isgaraacay ee ay daawadaan hal nin oo ka naxaya maantay midda ku qabiilkiisa iska dhaf midda aan ku qabiilkiisa ahayn ee fatado cannada kor u koreeyo iska wadanka adduunka dhan laga daawanay iska dhaaftaas midda ku qabiilkiisa ah inuu inta uu yiraahdo abaay see wax ku gaareen lagama yaabo. Assalaamu alaykum saaxiibayaal meel kasta joogtaan si kasta oo maqalkii muuqaalkayga idin soo gaaraya baalka adiga daawanaysaan waa channelka Shaacar Sheekay waan laakiin Shaacar Sheekay ku soo dhawaada barnaamijka dalaynta bulshada oo idin kugu hayo waad saaxiibayaal inta barnaamijka ugu galin fadlan subscribe saar channelka sidoo kale la muuqaalkan si uu gaar saaxiibo badan waata hadaba muuqaalkan waan ogahay waa muuqaal aad u falxumo badan mana ahan muuqaal in la buunbuuniyo u baahan laakiin xaqiiqada jirta waxa ay tahay hadii aan tooshka lagu iftiimin waxa dhibaatadan ka dambeeya inaan daawo loo heli doonin sidoo kalena ay gabdho badan oo Soomaaliyeed ceebtan iyo fadeexadan iyo falxumadan u soo jiidi doonaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogaan hadaba dad badan ayaa markay gabdhahan isrifaya baraha bulshada ku arkeen u arkay gabdha si caadi ah gabdha isdagaalay ama gabdha wax ayagu ka dhaxeeyeen hadaba hadii arintaasi aad u heysatay ma ahan sida aad u malayso runtii anigu markii aan raajiyay gabdhahan Soomaaliyeed ee dhibaatadan isku geysanaya ee sidan isku dhibaateynaya maxaa ku dhacay markii aan xaqiiqadiisu ogaaday madaxan qabsada waan yaab labadan gabdhood waxa kaga daran ma ahan gabdha caadiyo oo xitaa aan la aqoonin ma ahan waa gabdho social media isticmaala youtuber ah tiktoker ah waa gabdho macnaha social media dadka ka soo hormuuqday dadka wax u soo gudbiya waxaase aad uga naxay markii aan arkay gabdhihii oo midba kale ay ku faanayso anigiiba gabadhii halkan ku rifay mid kale ay soo qaadanaysa muuqaalka ay dhahayso waa kana markaan anigu aan ka koreeyay rifayay subhanallah waa arin aad iyo aad u la yaab badan waan arin runtii aad u xanuun badan laakiin su'aasha isweydiinta badan waxay tahay war gabdhahan inay ilaa iyo heer muuqaal iska duubaan iyagoo isrifaya muuqaal ay iska duubaan waliba wadan aan wadankoodii hooyo ahayn maxaa keen hadaba markii arintan baaritaan ku sameeyay waxaan ogaaday in gabdhahani horta isku haystaan bataatan wax la yiraahdo qabiil iyo qolo arintani xaggay ka soo bilaabatay marka arintan waxa ay ka soo bilaabatay oo gabdhahan keenay inay live muuqaal ayagoo isgaraacay ay muuqaal video iska soo duubaan waa barnaamijkii Shiina Culay iyo Bilal Bishaawi TikTok ee labada qabiil ay u kala baxeen halkaas bay fidnadu ka soo bilaabatay wax kasto ay gabdhahaasi maanta isku geysteen waxa ka Shiina Culay iyo Bilal Bishaawi inkastoo qaarkood raggii hadda waxa barnaamijkaas sameeyay sida aan arkay Bilal Bishaawi hadda waxaan ugu sii fogaadaan ogeyn soo muuqaal soo duubay oo dhahaya marka waxba iga faktay intaasna hal laga raali ahaado Soomaali waxba iga raali ahaada ninka ragana ama qofka mu'minka ama muslimkana waxa lagu gartaa markii uu qalad galo inuu qaladkiisa ka soo laabto kaasana diiniyan naloo sheegay inuu yahay qof wanaagsan laakiin waxa ayaan darro ah in waliba ay arintii u sibaansmayaan ama ay doonayaan inay sidaan ama ceebtaan ay dhacdo baliyaa in ku dhaarshay fiish waa gabdho Soomaaliyeed iskuma haystaan wax kale qolo wax kale isku dagaali maayaan waxay labadaasi gabdhood muuqaalada isaga duubayaan ee isku rifayaan waa ree hebel iyo ooyaayo iyo ordaayo cararayo iyo ooyaayo wallahi billahi tullahi hadii aan sidan ku sii socon oo aan wadadan ku sii taagnana hadii aan Soomaalina meeshii waa dhamaad khalaas magac dambo Soomaaliyeed meel madow buu ku dhacayaa wadaninimada beenta ah calamada beenta ah markii dad shisheeya wax naga leexayaan la ruuxo waxaasoo dhan waxa god madow ku riday oo aasay rag afku xooglayaal ah oo tuuga ah oo u soo dhigtay inay xoolaha dadka ku xaabsadaan wax aan waxba ahay raggan Yurub jooga ee durbaanka tumaya ee hadda xitaa aan muuqaalada arkay baraha bulshada ee TikTok-ga iyagoo ku haya waxaan doonaynaa inaan maalin heblaayo aniga hebel iyo hebel aan sameeyno barnaamij qabyaaladaysan oo lagu kala baxay
waxay doonayaan oo isacbatumayaan oo ay rabaan wax kala maaha waxay rabaan in gabdhaheena sharafta leh ay faan iyo qurux u maleeyaan inay baraha bulshada waddan islaam isku rifaan inay dharka iska jeexjeexaan oo isqaawiyaan ee kastuumooyin isku soo reebaan iyagoo isgaraacaya ee ay daawadaan hal nin oo ka naxaya maantay midda ku qabiilkiisa iska dhaaf midda aan ku qabiilkiisa ahayn ee fatado canada kor u koreydo iska waddanka adduunka dhan laga daawanayo iska dhaaftaas midda ku qabiilkiisa ah inuu inta wacay yiraahdo abbaay see wax ku gaareen lagama yaabo aduu mid kasta waay halin kaliya waa mid kasta labadaas gabdhood labada qofooda meesha ka qeeladaaminaysa ee dhaysa qabiil baan u tartamaynaa gabdhahaas walaalahooda ee maanta ceebtoodii iyo cawradoodii adduunka dhan saas u daawanaya isku laba gedinaya hal nin oo wacaya oo telefoon caadi xitaa ka waca dhaay abbaay qabiilkayga dartiisa wax ku soo gaarin sidee wax u jiraan male kaliya waxa ay fiirsanayaan maxaad caawa bangiga akoonka kugu jira oo aad maanta ku shaxtantaa oo aad meelaha ku wareegtaa waxaan sidoo kale idin sheegayaa in dadkani ay ogaadeen markii Soomaalinimo wax lagu aruursan waayo oo bari bulshada isku fahmay ilaa ma jiro qof lacagtiisa ku faarujinayay waxay ogaadeen meesha kaliya ee wax lagu heli karo inay tahay qabiil iyo qabyaalad haddii ninkii maanta wax ku siiyay wax ku gaday qabiil kugu gaday hadduu isbitaal ku jiro hadduu dhintay hadduu nool yahay والله iska warqabin waa calaamadaha qabyaalada lagu garanayo gabdhaha Soomaaliyeed ee kale ee 24 saac iyagoo ahaan qofkii lacagta la siinay iyagoo ahaan qofka wax loo diray dhiig iyo aw qaadayo macnaa wan dareemaya dhiig iyo waninay walaalka aba laga badiyay u rafanaysa war walaalka waa ka midka adoo wadada ay awradaadii kor u jeedo ku daawanaya ee xigta aan ka soo hadlay ee xigta aan ku dhaynin waxaan waa qalad war gabdhow san ka jooga kaas waay midkaad u gubanayso maalinta aakhirana waxaad qabiil ugu dirbaasunta waad helaysaa oo xaqiiqo ah waad miraheedu waad guranaysaa ama lacag ku bixi ama aduu qof walaalka u dil ama maantay labadaasi gabdhood ee baraha bulshada saas ayagoo isku galaya baraha bulshada isku faafinaya ee isku dhibaateynaya dhibka ugu weyn maanta wuxuu soo gaarayaa familkooda haddaan iyaga xabsi loo taxaabin caruurta iyo familka ay haystaan ayaa laga aruursanaya ninkan TikTok ka qaylinay qabiilka isku balansanay ma shaqeysan kara wuuna baahan wuxuu rabaa in isagoo fadhiyo chiefka ku shaqeynaya loo soo guro social media ku fashilmeen Facebook bay ku fashilmeen YouTube waxay soo bandhigeen la daawo waayo maanta markaad qabiilkaaga maanta dhan faaniso waxa laga yaabaa afartoo qabiilkaaga inay ku daawato haddaan Soomaaliya ka hadlay afartoo qabiilkaaga ku daawanayso waxban ku helmayso views neelimis lagna helmayso marka waa qalaas fashil meesha ugu dambeysa taaganta way ku qasbayeen marka inay TikTok isugu tagaano ay fikradda dadka dhalinyaradii gadaano rogaano ay ka dhaadhiciyaan qabiil laakiin ugu dambeyn waxaan leeyahay war dhalinyaroy annagu haddaan dhalinyartii nahay waajib baa naga saaran inaan ka hortagno wax kasta oo qabyaalad ku saysan dad duqoobay ee gaandariyaal qaarkood soo ahaayeen ee qabyaalad soo dilootay 5 walaalkooda qabiil u soo dilay ee aan aqradooda u naxaynin ha ku dabalnina aad baa ma san daawashada muuqaalka waan shaashey kale sidaayo muuqaal dambe xisan